iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo haysashada Iiraan ee hubka nukliyeerka ah isla markaana ay jiraan xiisado culus oo ka dhex taagan Iiraan iyo dalalka Khaliijka kaasoo cirka isku shareeray tan iyo markii uu bilowday dagaalkii ay fooda isku dareen isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka oo dhinaca iyo Xuutiyiinta Yemen oo dhanka kale ah. sidoo kale isfidinta Shiicada ay ku wajahan dalalka Khaliijka wuxuu saameyn lixaad leh ku yeelan doonaa xasiloonida gobolka ama guud ahaan bariga dhexe, iyadoo taasina ay hareer socoto isu dheelitirnaan la'aanta jirta ee dhanka awoodeed ee dalalkaasi, sida ay tilmaamayaan raadadka aan la iska indhatiri karin ee siyaasadeed iyo juqraafi ee dowladda Iiraan ee hadda jirta ay noqotay tan ugu caansan ee bariga dhexe. haddaba si looga gaashaanto arrimahaas oo dhan, dalalka Khaliijka Carabtu waxay marar badan ku dhawaaqeen inay doonayaan inay samaystaan nukliyeer, balse waxaa jira 3 caqabadood oo ka hor istaagi karta Khaliijka inay ku taamaan inay noqdaan dalalka haysta quwadaha nukliyeerka. wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar, Khalid Al-Atiya, oo ka hadlaya arrinkan ayaa horey u sheegay in mowqifkooda uu ku cad yahay axdiga u yaala golaha iskaashiga Khaliijka ee Carbeed, isla markaana loo ogol yahay oo kaliya inuu dal samaysan karo haddii uu rabo barnaamij nabadeed oo nukliyeer ah, balse ma jiro hal wadan oo gobolka ka mid ah oo xaq u leh inuu haysto ama uu samaysto hubka nukliyeerka ah, ilaa waa inay u wada siman yihiin kulligood oo wadan walba uu ku jira dalalka golaha iskaashiga Khaliijka, isla markaana iyagu yeeshaan hubkaasi. waxaase habboon inuu gobolka oo dhan ahaado mid ka caagan hubka waxgumaada ee nukliyeerka. sanadkii 2015 ayuu ahaa midkii ugu horreeyay ee noociisa ah oo Sacuudiga iyo Kuuriyada Koonfureed ay magaalada Riyaad ku kala saxiixdeen heshiis lagu dhisayo 2 warshadood oo nukliyeer ah oo ku kacaya $2 bilyan, isla markaana muddada uu soconaya ay gaarayso ilaa 20 sano. waxaana heshiiskaas sidoo kale ka mid ahaa iskaashi dhinacyo badan leh sida cilmi baarista, horumarinta dhismaha iyo weliba tababarka militari. heshiiska iskaashiga ayaa yimid kadib markii dadaal iyo wadaxaajood dheer oo socday muddo 4 sano ah lagu soo gabagabeeyay magaalada King Abdullah. bilowgii sanadkii 2011 ayay ahayd markii labada wadan heshiiskaas wadajirka ah ee dhinaca horumarinta iyo ka faa'iideysiga tamarta nukliyeerka ah kala saxiixdeen. kadibna sanadkii 2013 waxaa heshiis is-afgarad ah oo la saxiixay isna uu ka dhacay macadka cilmi baarista ee tamarta atomikada ee Kuuriya si ay labada dal isaga kaashadaan beeraha iyo kaabayaasha kale ee dhaqaale, ilaa laga soo gaaray heshiiska labada dal uu gaaray bishii March ee 2015 kaasoo ahaa gabagabadii iyo guusha dadaaladaasi. sida laga soo xigtay Hashim Yamani oo ah madaxa xarunta tamarta atomikada ee magaalada Boqor Cabdallah, dalka Sacuudiga waxa uu yeelan doonaa ilaa 16 goobood oo nukliyeer ah ka hor inta aan la gaarin sanadda 2030. waxaana 2011 Amiir Turki Al Faisal oo ahaa madaxa sirdoonka Sacuudiga iyo safiirkii Sacuudiga ee Mareykanka waagaas uu sheegay in boqortooyada Sacuudigu ay samaysan doonto hubka nukliyeerka ah haddii ay Iiraan iyo Israa'iil ay gacanta ku dhigaan hubkaasi. waxaana sanadkii 2012 la xaqiijiyay in Sacuudigu si degdeg ah u bilaabi doono barnaamijkiisa hubka nukliyeerka haddii ay Iiraan ku guuleysato horumarinta nukliyeerka. wuxuu kaloo ku muujiyay sida ay uga go'an tahay boqortooyada Sacuudigu inay helaan hub nukliyeer ah. waxaana hadalkiisa ku sii daray wax kasta oo Iiraaniyiintu haystaan waxay nagu dhiirigelinayaan inaanu helno. dhanka kalena wargeyska Yuhuudda ee The Times of Israel ayaa sheegay in Sacuudi Carabiya ay la xiriirdhay xulafada Pakistan si ay u helaan hubka nukliyeerka ee diyaarsan, taas oo muujinaysa baratanka hubka nukliyeerka ee ay kula jiraan dhigooda Israa'iil iyo weliba Iiraan oo haatan mashruuceedu marayo heer gabagaba ah. sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca Mareykanka waxa uu isaguna dhankiisa u sheegay wargeyska The Sunday Times ee ka soo baxay Ingiriiska in la filayo in hadda la joogo waqtigii Sacuudigu ka dhameyn lahaa mashruucaasi. sarkaalkan oo diiday in magaciisa la xuso wuxuu kaloo intaas ku daray inay jiraan heshiis kale oo hoose oo u dhaxeeya Pakistan iyo Sacuudiga kaasoo sida uu sheegay sahli kara istiraatiijiyadda mashruucaasi. wuxuuna isaga oo hadalkiisa sii wata yiri Mareykanku ma aaminsana in qalab iyo hub laga keenay Pakistan loo wareejiyay Sacuudiga, balse wuxuu carabka ku dhuftay in Sacuudigu ay jiraan xogo hoose oo tilmaamaya arrinkaasi. haddii ay gabagabowdo mashruuca nukliyeerka Iiraan, wuxuu albaabo hor leh u furi doonaa in hubka nukliyeerka uu faraha ka baxa una noqdo mid hadhow la xakameyn kari waayo, taasoo lid ku ah fikirkii hore ee la aaminsanaa. muddo 30 sano ka badan ayaa laga joogaa markii guud ahaan uu bilowday ciribtirka iyo in dalalka Carabta laga burburiyo hubka nukliyeerka lagana ilaaliyo inay samaystaan. waxaana dalalka bilow u ahaa oo 1991 lagu bilaabay Ciraaq kadib markii lagu khasbay inay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukliyeerka kaasoo xilligaa marayay marxalad bilow ah. 2003 ayaa hogaamiyihii hore ee dalka Liibiya Muammar al-Gaddafi asagana ugu dambeyn meel iska dhigay dhammaan qalabkii iyo qaybihii kala duwanaa ee uu ku samaysan lahaa hubkiisa nukliyeerka kadib markii uu cadaadis fara badan kala kulmay Mareykanka iyo weliba dalalka reer galbeedka. waxaana qalabkaas markii dambe gacanta loo geliyay dowladda Mareykanka.
boqortooyada Sacuudiguna waxay 2009 ku dhawaaqday in Sacuudigu heli doono hubka nukliyeerka waxaana taa xigtay 2011 markii dowladda Sacuudigu ku dhawaaqday qorshe lagu dhisay 16 xarumood oo nukliyeer ah 20 sano ee soo socda kaasoo lagu qiyaasay kharash dhan $80 bilyan waxayna xarumahan sida la sheegay ay haqabtiri doonaan 20% korontada guud ee laga isticmaalo Sacuudi Carabiya haddaba caqabadaha ka hortaaga in dalalka Carbeed ay helaan nukliyeerka waxa uu dhexaad u ah heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee ay saxiixeen inkastoo si la mid ah Iiraan ay saxiixday balse ma aysan saxiixin habraacyadii lagu heshiiyay ee tooska ahaa kuwaas oo si rasmi ah loo saxiixay 2005 oo u dhignaa in gebi ahaanba aaga bariga dhexe uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka sida uu dhigaya heshiiskaasi dalalka saxiixay heshiiskan waxay ballan qaadeen inaysan iibsan karin aaladda tiknoolajiyadeed ee lagu farsameeyo hubka nukliyeerka waxaana dalalkan ay ku heshiiyeen inaysan isticmaali doonin hubkaasi ilaa ka hor inta aan iyaga loo adeegsan ama waddan kale oo leh awoodda nukliyeerka uusan dagaal ku soo qaadin dalalkaasi saxiixayaasha heshiiska ayaa sidoo kale isku raacay in la yareeyo baaxadda hubka nukliyeerka ah iyo in awoodda nukliyeerku ay u adeegsadaan ujeedooyin nabadeed dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska iyo waliba Canada iyo guud ahaan reer galbeedka ayaa ka wada siman in hubka nukliyeerku uu khadcas yahay kana diiday dalalka Carabtu inay u soo dhawaadaan ujeedka ay Israa'iil u haysato hubka nukliyeerka ayaa ah in la abuuro dowlad sidoo kalena Israa'iil ay iskaga ilaaliso qolo kasta oo isku dayda inay u soo dhawaato fikradaas oo ahayd mid muddo badan laga soo shaqeynayay haddaba haddii dowladda Pakistan ay caawiso dowladaha Carabta oo ay siiso hubka nukliyeerka waxay khubarada militarigu taa ku tilmaameen inaysan Pakistan aysan ku filneen oo aysan dabooli karin baahiyaha dalalka Khaliijka ama dalalka Islaamka caalamka oo dhan haddii ay dowladaha Carabtu ay doonayaan inay sii wadaan mashruuca nukliyeerka oo la mid ah barnaamijka Iiraan sida uu Obama sheegay ma jiraan ifafaalo muujinaya in Carabtu sida Sacuudiga ama kuwa kale ay rabaan inay sii wadaan barnaamijka nukliyeer ah oo gaar ah iyaga waxa ka maqan buu yiri ficilkii ay arrinkaas ku filin lahaayeen waxa kale oo dheer inaanu anagu gacanta ku hayno amniga uuna jiro iskaashi amni oo u dhaxeeya Mareykanka iyo dalalkan waana mid ka hortagaysa wax kasta oo lid ku ah danahayaga ayuu raaciyay sareeyagaas Xamdi Barakaad oo ah khabiir dhanka militariga ah ayaa sheegay in dhammaan dalalka Carabtu aysan lahayn khibrad ay ku horumarinayaan hubka nukliyeerka gaar ahaan maadaama ay ka soo iibsan karaan dalalka reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka waxaana sidoo kale mamnuuc ka ah dalalkan in la barto farsamada nukliyeerka waxaanu intaas ku daray in dhammaan dalalka Carabtu aanay haysan khibrad ku filan gaar ahaan maadaama uu jiro tiro yar oo Carab ah oo wax ka barta cilmiga tamarta jaamacadaha dalalka dibadiisa taasoo keentay inaysan maanta awoodin inay si iskood ah u soo saari karaan hubkaas nukliyeerka ah waa barnaamijkeena xulashada dunida oo aad kala socoteen Horfadhi TV